dagaaladii u dhaxeeyay beelaha Ciise iyo Samaroon ee ka socday deegaano ka tirsan galbeedka Somaliland oo sii xoogeysay iyo sidoo kale ciidamada militariga Somaliland oo markan si toos ah tallaabooyin u qaaday sidoo kalena soo falageliyay dagaalada iyo sidoo kale dhibaatooyinka ka taagan deegaanada galbeedka Somaliland waxaan kula wadaagi doonaa dagaalo saaka bilowday ilaa iyo waqti xaadirkan ka socda deegaanka Heemaal ciidamada beesha Ciise oo duulaanka soo qaaday iyo sidoo kale gurmadka ay heleen maxaa ka jira wararka sheegaya in dagaaladii ugu dambeeyay ay sababeen khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac gaadiid dagaal oo la gubay iyo sidoo kale ciidamada beesha Ciise oo la xaqiijiyay in ay dib u riixeen ciidamo la sheegay in ay beesha Samaroon ka soo jeedaan oo ku sugan deegaano ka tirsan ama deegaanka Heemaal iyo tuulooyinka hoos yimaada waxaan kula wadaagi doonaa xogo iyo macluumaad dheeraad ah muuqaaladan sidoo kale aad arki kartaan waa ciidamada militariga Somaliland oo ku sii qulqulaya deegaanka Heemaal iyo sidoo kale deegaano kale oo ku yaala dhinaca xadka Itoobiya haddaba waqti xaadirkan dagaaladan miyay sababi karaan in gebiyahanba xaaladdu ay faraha ka sii baxdo waxaan kula wadaagi doonaa xogo iyo macluumaad dheeriya oo arrimahaasi ku saabsan xilli warbaahinta baraha bulshada ay si weyn isaga weerarayaan beelaha Samaroon iyo sidoo kale Ciise sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa dhaqanka beesha Ciise kulamadii ugu dambeeyay ee kaga socday gudaha waddanka Djibouti oo la sheegay in la soo gabagabeyn doono laguna dhawaaqi doono xafladda iyo xeerka buugga Ciise waqtiga iyo halka lagu qabanayo xaaladda miyay doonayaan inay kaga sii daraan warbixino iyo xogo xasaasiya oo arrimahaasi ku saabsan ayaan kula wadaagi doonaa qodobada kale aad daawan doontaan haddii uu eebbe idmo waxaa qayb ka ah madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani oo ku sugan magaalada Abu Dhabi ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa halkaasi ka bilaabay kulamo kala duwan kuwaasi oo la sheegay in uu la yeelanayo qaar ka mid ah ganacsatada iyo sidoo kale siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda dowlad goboleedka Puntland iyo guud ahaanba beesha Daarood haddaba Siciid Cabdilaahi Dani waa maxay ujeedada kala duwan ee kulamadan uu ka leeyahay muxuuse ku diiday in Garowe uu joogo maadaama waqti kasta uu ku sugan yahay magaalada Abu Dhabi ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta waxaan kula wadaagi doonaa xogo iyo macluumaad dheeriya oo arrimahaasi ku saabsan qodobada kale ee Soomaalida ka baxsan ee aad daawan doontaan haddii uu eebedmo waxaa qayb ka ah dowladda Iiraan waxay wajahaysaa go'doomin xooggan kadib markii dowladda Ciraaq gabi ahaanba ay joojisay shidaalkii ay ka iibsan jirtay Iiraan haddaba arrintan macadaadiska Mareykanka iyo qorshaha la doonayo in lagu go'doomiyo dowladda Iiraan miyay qayb ka tahay waxaan kula wadaagi doonaa xogo iyo macluumaad dheeri oo arrimahaasi ku saabsan xilli la leeyahay Iiraaniyiintu waxay dhumin doonaan suuq weyn oo ay Ciraaq ka heli jireen sababtoo ah halkaasi ayaa dib looga sii iibin jiray oo xitaa wadamo kale ayaa la gaarsiin jiray shidaalka waddanka Iiraan maadaama cunaqabateen ay saaran tahay macluumaadkaasi waan kula wadaagi doonaa qodobadaas iyo wixii kale nagu soo kordhay ayaa daawan doontaan haddii weebeedmo balse marka hore soo dhawaada laagsar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada sidoo kale qayb ka noqon saaxiibada ku xiran waxaan ku soconnaa waddadii aan ku gaari lahayn 50,000 oo subscribe kaliya safarkeen adiga ayaa ka dhiman ee sulka saar oo subscribe inoo saar channelka mahadsanidin waa hagaag aynu ku bilowno ciidamada beesha Ciise ayaa weerar waxay ku soo qaadeen deegaano ka tirsan gobolka Awdal waxaana si gaar ah u weerareen fadhiyada ay leeyihiin ciidamada beesha Bahabar Celi ee ku sugan deegaanka Heemaal waxaana la xaqiijiyay in duulaankan uu ahaa midkii ugu xoogganaa oo ay soo qaadaan beesha Ciise laguna soo qaado beesha Samaroon dagaalkan ka socda deegaanka Heemaal ayaa waxa uu soo bilowday saakay abaare 7 subaxnimo ilaa iyo waqti xaadirkan waan idin hadlayna waxa la leeyahay dagaaladu waa ay socdaan waxaana la isku adeegsanayaa hubka noocyadiisa kala duwan ciidamada beesha Ciise ee weerarkan soo qaaday ayaana la sheegay in tiradooda ay aad u badneed sidoo kale ay wateen gaadiid dagaal iyo hubka noocyadiisa kala duwan waxaana la leeyahay xaaladdu waxay u muuqataa mid gebi ahaanba faraha ka sii baxaysa iyada oo khasaarooyin xooggan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac la xaqiijiyay in halkaasi ay ka dhasheen wararka qaar waxay sheegayaan in ciidamada beesha Gudabiirse xoogaa yara la durjiyay oo laga saaray deegaanka Heemaal laakiin markii dambe waxa arrintaasi soo farageliyay oo ku soo biiray ciidamada militariga Somaliland kuwaasi oo la xaqiijiyay in mar kale ay si toos ah ula safteen beesha Samaroon ayna garab siiyeen ciidamada beesha Gudabiirse si gaar ah ciidanka Bahabar Celi ee ku sugnaa deegaanka Heemaal oo la leeyahay
waaba deegaanka ugu badan ee dagaaladu waqti xaadirkan ay ka holcayaan dagaalka himal ayaana waxaa la leeyahay ilaa iyo haatan waxaa la xaqiijiyey 5 qof oo dhinacyadii dagaalamay ah in ay ku dhinteen dagaalkuna weli waa mid socda oo xaaladdu waxaa la leeyahay gebi ahaanba waxay u muuqataa mid faraha ka sii baxaysa haddii aan wax laga qaban tanina waxay ka dhigan tahay ayaa la yidhi in ilaa iyo haatan dowladda somalilan tallaabooyin dhexdhexaada aysan qaadaynin khasaaraha dhimasho iyo mid ka dhaawacna uu gebi ahaanba sii kordhi karo beesha ciise sidoo kale waxay bilaabeen in maleeshiyaad gurmada ay ku soo daabulaan deegaano ka tirsan gobolka owdal si gaara aagga deegaanka heemaal iyo tuulooyinka hoos yimaada waxaana leeyahay beesha ciise iyaga ayaa mar kasta weerara oo waxay doonayaan in gebi ahaanba ay cagta mariyaan ama ay burburiyaan sida ay wararku tilmaamayaan saldhigyada jabhadaha ee beesha samaroon waxay bilaabeen iyaguna inay gurmad ka diraan qaybo badan oo ka tirsan gobolka owdal baki ayaana ah magaalada ugu badan ee ciidamadu ay ku sugan yihiin waxaana leeyahay gurmadkii ugu badnaa ayaa dhinacyadaas kaga imaanaya kuwaasi oo si toosa ugu soo biiraya dagaalada culus ee ka socda deegaanadaasi tani oo ka dhigan ayaa la yidhi xaaladdu mid gebi ahaanba faraha ay ka sii baxayso ama xaaladdu waxay ka dhiganta ayaa la yidhi mid gebi ahaanba faraha ka sii bixi karta sababtoo ah ciidamada waxay u muuqdaan kuwa marmarka ka duwan qaadaya tallaabooyin kala duwan beesha ciisena waxay doonaysaa in qaab awooda ay ku hirgeliso xafladda iyo xeerka buugga ciise dagaaladan iyadoo ay socdaan sida aad ka arki kartaan sawirada iyo muuqaalada waa gaadiidka ciidamada militariga somalilan oo tegaya deegaanka heemaal si ay xaaladda u qaboojiyaan laakiin eedeymo xooggan ayay la kulmayaan sababtoo ah waxaa la leeyahay maleeshiyaadka labada dhinac ayay la kala safanayaan ama waxay doonayaan in maleeshiyadan ay la kala saftaan dhinaca beesha gudubbiirse ayaana lagu eedeynayaa ciidamada sidoo kale iyadoo dagaaladan ay ka socdaan heemaal xaaladuna ay adag tahay beesha ciise waxay leedahay innagu waa in si degdega loo qabtaa xafladda iyo xeerka buugga ciise waxaana kulamadii ugu dambeeyey ee dhaqanka beesha ciise uga socday gudaha waddanka jabuuti la leeyahay si gaara cali sabiix waa kuwa soo gebagaboomayo ugaaska beesha ciise ayaana la filayaa dhowaan inuu ku dhawaaqo goobta iyo sidoo kale wakhtiga rasmiga ee la qaban doono xafladda iyo xeerka buugga ciise oo hore looga joojiyey magaalada saylac ee xarunta gobolka salel halkaasi oo la doonayey in lagu qabto ilaa iyo haatan beesha ciise iyo tallaabooyinka ay qaadaysana waxay u muuqdaan ayaa la yidhi kuwa xaaladda kaga sii daraya marmarka ka dambaysa waxaana leeyahay tallaabooyinkan waxay keeni karaan gebi ahaanba in xaaladdu ay faraha ka baxdo qodobkan iyo waxyaabaha ka soo kordha iyo dhaqdhaqaaqyadan la dareemayo iyo tallaabooyinka ay qaadi karaan taliska ciidamada militariga somalilan isla halkan ayaad ka daawan doontaa dhinaca kalena madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdilaahi deni dhowaan markii uu ka laabtay magaalada kismaayo wuxuu si degdega u tegay magaalada abuudhabi ee dalka sultaanka imaaraadka carabta siciid denina waa lagu kari laayahay inuu joogo magaalada garowe siciid ayaa la xaqiijiyey in kulamo kala duwan haddaba uu ka bilaabay abuudhabi wuxuuna inta badan la kulmayaa odayaasha dhaqanka qaybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda beelaha daarood si gaara dowlad goboleedka puntland siciid ayaana waxaa la aaminsan inuu raadinayo dhaqaale xooggan oo uu kula dagaalo madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladda imaaraadka carabta iyo beesha uu kasoo jeeda ee majarteen iyo guud ahaanba daarood ayuuna arrintan ka doonayaa iyada oo dhowaana qodobadii ka soo baxay shirka magaalada kismaayo u aqbalay madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kalena gogash uu fidiyey laakiin xasan waxa uu leeyahay doorasho toos ah ayaa la aadayaa magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya berrito ayaa looga dareerayaa doorashooyinka golaha deegaanka 50 sane kadib inkastoo mucaaradka iyo xitaa maamulada qaar doorashadan ay diidan yihiin laakiin xasan culusow shalaytu waa uu ololeeyey isaga iyo xisbigiisa waxayna u muuqdaan in doorashadan ay tahay mid natiijo badan aan laga sugaynin sababtoo ah guddoomiyaashii degmooyinka iyo maamulka gobolka banaadir iyagii ayaaba doorashada maamulaya tani oo ka dhigan ayaa la yidhi doorashada muqdisho berrito ka dhacaysa oo ku beegan 25 maalin khamiisa waa mid feeg ah oo aan waxba ka jirin ama waa doorasho gebi ahaanba been ah oo la leeyahay waa doorasho waxba aysan ka jirin qodobkan intaas ayaan kaga gudbayaa ugu dambeyn qodobada caalamiga ayaynu eegaynaahe dowladda waddanka iiraan ayaa la kulmaysa godoomin xooggan kadib markii xitaa dowladihii saaxiibka la ahaa iyo ururadii ay taageeraysay gebi ahaanba u muuqdo kuwa la daciifiyey dowladda ciraaq ayaa markii ugu horreysay war kooban soo saartay waxayna sheegtay inay joojisay shidaalkii ay ka iibsan jirtay dowladda iiraan waxaana halkaasi iiraan ay ku dhamisay suuq weyn iyo dhaqaale malaayiin dollar ah
oo ka soo geli jiray gudaha waddanka Ciraaq tusaale ahaan shidaalka laga soo iibiyo waddanka Ciraaq ama waddanka Ciraaq shidaalka loo iibgeeyo ee Iiraaniyiintu halkaas ay geeyaan kaliya Ciraaq kuma ekeene wadamo kale ayaa si hoose loogu iibgeyn jiray maadaama cunaqabateen ay saarneed Iiraaniyiinta tani oo ka dhigan ayaa la yiri in suuq weyn ay weysay kaliya Iiraan hadda waxaa ku haray hal suuq waana suuqa Jaynaha waxaana leeyahay Iiraan xitaa waxaa la daciifiyay kooxii ay taageeraysay ee ku sugnaa gudaha waddanka Ciraaq tani oo qayb ka istiraatiijiyad balaaran oo Mareykanku uu ku doonayo in gebi ahaanba uu ku naafiyo dowladda Amerikaanku sidoo kale waxay doonayaan inay qaadaan tallaabooyin kala duwan waxaana leeyahay waxaa jira guux xooggan oo Netanyahu ayaaba doonaya in mar kale la weeraro xarumaha nuclearka iyo guud ahaanba waddanka Iiraan Trump ayuuna arrintan ku qalqaalinaya laakiin Iiraaniyiintu waxay ku jiraan fejignaan xooggan guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaya wararkani ugu dambeeyay gudaha Soomaalida iyo caalamka ilaa dhamaadka haddii aad soo gaartay waxaan ku xusuusinayaa inaad channelka subscribe inoo saarto qaybna aad ka noqoto saaxiibada ku xiran waxaan ku soconaa waddadii aan ku gaari lahayn 50,000 oo subscribe kaliya safarkeen adiga ayaa ka dhimanaya sulga saar oo subscribe inoo saar channelka mahadsanidin